Bismillahirrahmanirrahiim. Kusoo dhawaada kanaalkeeni Warsida Media oo alaaba kala soo jirteen warar iyo warbixino muhiim ah. Waxaan halkan maanta idinkugu soo gudbinayaa casharkeeni qabyada ahaa sida loogu xirto bottka Phantom wallet-ka sidoo kalena looga trade gareeyo. Waxaa jira boodad fara badan laakiin halkan waxaan idinku tusahayaa bottka ugu caansan oo la yiraahdo Sol Trading Bot. Baan rabaa inaan halkan idinkugu tuso sida wallet-ka loogu xirto sidoo kalena looga trade gareeyo. ugu horeyn dhammaan boodadka inta aan rayo waxaa idin soo dhigi doonaa qaybta comment section-ka, halkaas aad ka dooran doontaan. Sidoo kale waxaa halkan idinkula wadaagayaa boodadka lagu iskaan gareeyo coinanka inay yihiin rug pull, inay dhammaan coinkaasi ay haystaan qolada oo soo sameysay, inay hadduu ilaahay ku rooyeen distributed yihiin. Dhammaan waxaan halkan idinkula soo wadaagi doonaa videogan. Sidoo kale botskaas dhammaantood waxaa ka helaysaan qaybta comment section-ka, hadduu ilaahay yiraahdo halkaas ka soo raaci kartaa. Sida loo sameynayo iyo qaabka loo iskaan gareynayo dhammaan videogan idinkula wadaagayaa. Ugu horeyn waxaan tegaynaa Sol Trading Bot. Markaan ku dhufano waxaa inoo soo baxaya sawirkan, kadibna waxaan ku dhufanaynaa start markaan niraahno waxaa inoo soo baxaya qaybtan. Marka waxaan ka dooranaynaa wallet, meesha wallet-ka ku qoran tahay baa ku dhufanaysaa. Markaa ku dhufato waxaa kuu soo baxaya connect wallet iyo generate wallet. Generate wallet baa leedahay haddaadan wallet hore u haysanin ama aadan rabin inaad wallet-kaaga ku xigto, waxaa dhahaysaa generate wallet cusub uu ku generate gareynaya. Sidoo kalena wuxuu ku siinayaa private key. Haddaan tusaale idinka tuso marka waxaan leenahay generate new wallet. waxaa aragtaa halkaas wuxuu noo generate gareeyay wallet cusub, sidoo kalena wuxuu ina siiyey new private key. Haddii aan rabno marka wallet-keeni horena inaan ku xirano waxaan taabanaynaa connect wallet markaan taabano wuxuu naga rabaa marka private key-gii wallet-keena inaan halkan soo gelino. waxaan tegaynaa marka qaybta waxaan tegaynaa Phantom-keeni si aan usoo helno private key-gii. Phantom wallet-kaan tegaynaa. Phantom wallet-ka markuu inoo soo kaco waxaan ku dhufanaynaa wallet-keeni tijaabada ahaa. Okay, waxaan tegaynaa qaybtan wallet, waxaan ku dhufanaynaa qaybtan setting markaa tagto manage baa ku dhufanaysaa. Kadibna wallet-kaagii korkiisa ku dhufanaysaa. Manage baa tagaysaa, wallet-kaagii baa ku dhufanaysaa. Kadibna waxaa halkan kuu soo baxayo seed phrase-ka iyo private key-ga. Anaga marka waxaan rabnaa private key-ga, waxaan leenahay show private key. Halka calaamadaas saxdaa saaranaysaa hoose, continue baa leedahay. Kadibna waxaad dooranaysaa network Solano. Okay, network Solano markaan dooranay private key-geeni uu siiyey. Wallet-kan waa wallet-keeni tijaabada ahaa oo hore aan Phantom-ka ugu sameynay. Waayahay markaa intaas sameyno kadib waxaan ku noqonaynaa Telegram-keeni. Halkan waxaan ku baasta gareynaynaa wallet-keeni cusba. Wallet-keeni hore oo halkan aan Phantom-ka noogu xirnaa waan baasta ku leenahay. Kadibna saasuu wallet-keeni inoogu create gareysan yahay. Halkan markaan joogno wallet-keeni horena uu noo create gareysan yahay, wallet-keeni kalena waa ku xirnay. Marka aad rabto inaad coin iibsato ama aad coin iskaga soo iibiso ama aad ku soo iibsato, waad baxaysaa, waxaad tegaysaa meesha hadduu ilaahay ku roon yahay dex screen-ka markaad tagto waxaad tegaysaa qaybta new coinska, geeskaas hore ku dhufanaysaa. Kadibna waxaad ka dooranaysaa network halkan Solana dooranaysaa. Kadibna new pairska hadda kuu soo baxay si aad u hesho waxaad taabanaysaa meeshaas yaroo sort ay ku qoran tahay. Kadibna waxaad dhahaysaa BH newest ka dhigaysaa. Marka wuxuu kuu soo saarayaa kuwii ugu dambeeyay. Tusaale ahaan hadda waxaan fiirinaynaa game kitty mid ay ku qoran tahay. Okay, kadibna waxaan soo qaadanaynaa contract-giisii qaybta dhexe anagoo ka koobiyeynayna. waxaan tegaynaa botkeeni Sol Trading ahaa. kadibna halkaasaan ku baasta gareynaynaa send ayaan leenahay. wuxuu leeyahay
maxaan kuu qabtaa marka maxaan hee kuu qabtaa haddaad rabtay inaad iibsato waxaa leedahay marka buy waxaa leedahay buy 0.2 sol 0.5 0.1 xisaabtan haddaad rabtid solana xisaabtana ku dhufanaysaa haddii tiradan meesha ku qoran tiro ka bedelan aa u baahan tahay inaad gadato waxaa ku dhufanaysaa buy x sol aa leedahay buy x sol markaad tiraahdid kadibna waxaa gelinaysaa tirada aad rabtid inaad iibsatid oo solana ah xisaabta solana ee aad rabtid inaad iibsatid baa gelinaysaa ma aha USDT iska hubi lacagta kugu jirta waa inay solana ahaato maadaama bottka uu ku dhisan yahay solana kaliya marka inta tirada aad rabto ee sol inaad intaa iibsanayso baa meesha kugu qoran USDT kuma qorna sol waa inaad haysataa good tirada aad rabtaa marka halkaas ku qoraysa 0.01 oo kala leedahay hadda anaga lacag kuma jirto waa balance insufficient ku leeyahay laakiin markii aad ku dhufato sidaas uu kugu iibinaya markii aad rabto inaad iska iibisana waxaa taabanaysaa qaybta ay ku qoran tahay waaya sell mode baa taabanaysaa sell mode markaad taabatid kadibna wuxuu ku leeyahay maxaan kaa iibiyaa ma 10% 20% 30% 70% 90% mise kulliya iska iibinaysaa haddii aad rabtid waxa meesha ku qoran wax ka duwan inaad iska iibisid oo 5% oo kala ah sol waxaa lahaa sell x token aa ku dhufanaysaa kadibna tirada tokenka aad rabtid inaad iska iibisid baa halkaa ku qoraysaa sidaasuuna iskaga kaa iibinaya haddaad rabtid faa'iidada iyo khasaarihii aad samaysay inaad la socotid sidoo kalena waxaad taabanaysaa qaybtan track ay ku qoran tahay track markaad taabatid wixii kuugu jiro ayuu ku tusayaa hadda no balance uu ku leeyahay for this tokenkan wax lacaga hadda kuuguma jirto ayuu leeyahay haddii marka track aad taabatid isaga kuu soo saaraya sidoo kale haddii aan kusoo celinay hadda adresskii hadda ahaa waa aan ku dhufano mar kale waxaa inoo soo baxaya informationkaas kii hore haday uu mar kale noogu soo celiyay haddaa marka swap tiraahdo swap uu leeyahay limit order uu leeyahay DCA uu leeyahay haddaa limit order u baahan tahay limit orderka ku dhufanaysaa then waxaa ku dhufanaysaa hadduu ilaahay ku ron yahay trigger meesha ay ku qoran tahay waxaa bedeli kartaa marka meesha priceka aad rabtid inaad ka iibsatid xisaabta priceka uu marayo numberka aad rabtid inaad ka iibsatid baa ku dhufanaysaa markaa ku dhufatid tirada markaa qortid bilmetal hadda 0. intaasoo 0 hadda wuxuu joogaa 0.40 114 uu joogaa marka 1 keliyaan rabnaa inaan ka gadano okay waa hayaa ku yiri lacagta aad rabtid inaad triggerkii waa isbedelay soo ma aragtid expiry date kana within 1 day way haddaa rabtid marka in muddo aad ku jirtid oo muddadaas uu ku joogo expiry date-ka waa bedeli kartaa expiry date-ka waxaa ka dhigi kartaa 2 days then expiry date-keena wuu ku bedelmaya lacagta aad rabtid marka inaad iibisid baa halkan ku qoraysaa xisaabta aad rabtid inaad iibisid intee in la ego solana aad rabtaa inaad ka iibsatid limit buy 0.2 0.5 1 sol 3 sol xisaabtan inta ku qoran haddaysan ku anficin oo aad rabtid wax ka bedelan inaad iibsatid waxaad taabanaysaa limit waxaa leedahay limit buy x sol kadib xisaabta aad rabtid inaad gadatid baa halkaas gelinaysaa intaa waa isla garanay qaybtan oo bottka lagu trade gareynayo I hope muhiimadiisa intaas weeye intaa waa isla garanay track haddaa rabtid wixii aad khasaartay iyo wixii aad faa'iiday inaad ogaatid walletka waxaa kusoo baast garanaysaa contractiga kadibna waxaa ku dhufanaysaa track isaga kuu sheegaya khasaare iyo faa'iida intii aad tira ku jirtid haddii aad rabtid inaad iska iibisid sell mode aad ku dhufanaysaa haddaa rabtid inaad iibsatid buy mode aad ku dhufanaysaa limit order haddaa u baahan tahay oo markuu xisaabta soo gaaro haddaa u baahan tahay limit orderka ku dhufanaysaa waa sida idiin sheegay good and I hope in intaas idinku filan tahay haddii wax kaloo dheeri oo su'aalo ah ka qabtaana commentiga igu soo weydiiya videoga dambe ayaa idinkugu sharaxi doonaa sol meme coin wax hal maalin iyo hal video lagu dhameyn kara maaha
wixii qabyo oo halkan aan ka tagna videoyada dambe oo kale ayaan kusoo sharxi doonaa hadduu Ilaahay yiraahdo. haddana waxaan rabaa inaan idin galo qaybta coinanka lagu iskaan gareeyo. coinka sida u ogaatid inuu rag bool yahay, in coinka qoladii iyo create gareysa kaliya ay haysato, in hadduu Ilaahay ku ron yahay waaladiyo badan ku dirsadeen informationka coinka oo dhan si aad u heshid. waxaa u baahan tahay boodad lagu iskaan gareeyaa jirta. halkan waxaa isugu keen soo koobay 7